magaca dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aan afayeenka u ahay waxaanu cambaaraynaynaa ereyada ugu adag wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo ficilka ugu xun wax sameeyay lagu cambaareeyo yaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay Afgooye lagu waxyeeleeyay loogu xadgudbay laba caruura oo sabi ah waxa halka ka dhacay laguma sheegi karo waxa dadka qaarkiis ku tilmaameen ay yiraahdeen waa kufsi waa taaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed loo geystay shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo shacabka Soomaaliyeed ayaa wajigiisa ceeb lagu dhigay xumaan lagu dhigay wax bini aadanka adduunku isweydiiyo Soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo Soomaaliya kulligaan waynu garanaynaa in waxa halka ka dhacay aanu kufsi ahayn ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed uu yahay magac dil qof kasta oo Soomaaliya lagu sameeyay la doonayo in dadka Soomaaliyeed laga dhigo dad aan bini aadan caadi ahayn la doonayo waxa sidaas doonaya maaha Soomaali damiir xun baa la adeegsaday Soomaali damiir xun baa la adeegsaday soddonkii sano ee aynu ku jirnay dhibaatada iyo dagaalada sokeeye bilaashugumaynu jirin dad magaca Soomaaliyeed markuu dira burcad badeed oo markuu dira argagixiso oo markuu dira kufsi oo mar shacabka Soomaaliyeed isku diraan ku dila waa dad aan wax maqlin oo xayawaan ah oo isdilaya ayaa maal geliyo waxa sameeya oo dad Soomaaliyeed soo adeegsada dawladda Soomaaliyeed waxay amraysaa ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan ciidamada qalabka sida maamulka heer qaran iyo kan degmada Afgooye in gacanta lagu soo dhigo dadkii ficilka ka dambeeyay iyo kuwii maalgeliyay ee u qaadanaya magaca Soomaaliyeed inay ku baabiyaan way la soo qabtaa waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka u sheegaynaa in waxa halka ka dhacay aanu ahayn dhaqan Soomaaliyeed inaanu ahayn waxa dadka Soomaaliyeed u taagan yahay diiniyan dhaqaniyan iyo dadnimo intaba waxaanu u taaganahay inaanay ahayn waxaanu la xanuunsanaynaa caruurta Soomaaliyeed sabiga Soomaaliyeed ee la dhibay waxaanu la xanuunsanaynaa qoyska culimada Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed waxaanu doonaynaa inay ka hadlaan ficilka bahalnimada ee magaca Soomaaliyeed lagu dilayo loo arko inuu weerar yahay ee aanu ahayn ficil shacbi ma waxa la helayaa hadii si fiican loo baaro hay'adihii maalgeliyay la helayaa horay u sameeyeen gabdha yar oo caruur ah saas oo kale u sameeyeen waa ficil soo jiray oo magaca Soomaaliyeed lagu dilo Soomaalidu waa dad diin leh waa dad dhaqan leh waa dad bini aadanka adduunka jooga kuwa ugu ixtiraamka badan ugu deeqsiisan ugu wanaagsan laakiin wala baabiinaya magacooda dawladdu dadaalka ay wado shacabka Soomaaliyeed dadaalka uu wado ee la doonayo in magaca Soomaaliyeed aan wanaajino ayaa lagu baabiinaya mar labaad waxaan amrayaa anigoo
ku hadlaya magaca dawladda Soomaaliyeed in ciidamada qalabka sida oo dhami u arkaan ficilka halka ka dhacay ficil weerar ah baaris aan xad lahayn lagu sameeyo la soo qabto wixii sameeyay xayawaan maaha xayawaanku waa wax qiimo leh weeye wuxuushka la soo qabto cidii soo dirtana la soo qabto waa la soo diray ogaada shaki igama jiro shaki yar igama jiro in dadka la soo adeejiyo horena kuwa kale badan oo saas la adeejiyo waa ka xunahay dawladahan gabdhaha yar yar waa daryeelina dawladahan